dowlad dhiska Soomaaliya waxaa ugu muhiimsan soo celinta kalsoonida ka dhaxaysa shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dowladda. Arrintaasna waxaa buddhiga u ah sarreynta sharciga, rule of law waxa la yidhaahdo. garsoor xooggan oo cadaalad ah waa shardiga koobaad ee nabad waarta, xasilooni siyaasadeed iyo horumar dhaqaale intaba. haddii aysan jirin cadaaladaas aan sheegnay, way adag tahay in la xaqiijiyo amni waara, kalsooni shacab iyo maalgashi mid gudaha iyo mid dibadda intaba way adag tahay. sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in la helo cadaalad lagu kalsoonaan karo oo ay arrimaha aan sheegnay oo dhani ku suurtagelayaan. haddii aysan kuwaasi jirin, intaa aan sheegnaba aad iyo aad bay u adkaanaysaa. Soomaaliya maanta waxay meel fiican ka maraysaa arrinta dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka sida uu wasiirkuba tilmaamay. arrintaas oo runtii arrin muhiim ah, wax badan laga soo qabtay, waan ognahay in horey 4 cutub baarlamaanka u mariyeen, haddana intii kale technically lasoo dhammaystiray oo baarlamaanka aan rajeynayay inay arrintaasi ay dood ka galaan. waxay maraysaa marka, maadaama la yidhi de waxaa bays u ah ummaddan kala tagtay markii dastuurkeedii ay tuurtay, kadibna dee muddo dowlad xoog badan ha yeeshee aan dhididba adagoo sharci ku taagnayn ay dalka ka talinaysay. markii dambena dee dowladda ay burburtay, dadkiina ay kala tageen, dagaalameen oo dirireen, la kala fogaaday. isu soo celistii dambe iyo dowlad dhiskii iyo Soomaali oo dib u soo noqota ayaynu ku jirnaa. waxay doodu ka taagan tahay markaa, aad u adag tahay doodaasi, weliba ayna sahlanayn. dastuurka aan samaysanaynay ileen dastuurka dib u eegis buu ku jiraa. dib u eegista macnaheedu waxaa weeye dastuur cayriina ayaa 12kii ergooyin gacanta u taageen. marka dastuurkaasi waxaa la faray in xukuumad kasta ama dowlad kastoo timaada inay dib u eegis ku samayso. muxaawalaad fara badan bay sameeyeen xukuumadihii iska dambeeyey oo dhan, soo kala dambeeyey, laakiin in la dhammaystiro waa lagu guulaysan waayey. waxay doodi ka jirtaa dastuurka aan samaysanaynay, waxaynu rabnaa dastuur Soomaali kala tagtay isu soo celiya, mise waxaynu rabnaa dastuur Soomaalidii kala tagtay sidaa ay ku kala joogto wax ugu kala sameeya oo aan isku soo celinin. dooda ugu adag meeshaas ka taagan tahay. waynu kala tagnay ina kala seexiya dastuur sidaas ogol oo kulligiis ku salaysan inay sidii ay duruuftu inaga dhigtay
inaynu ahaano miyaan samaysanaa mise oo dee markaa waxay noqonaysaa dastuur loo sameeyey xaaladaan caafimaad qabin markaan jirannay oon xanuunsannay sidii aan ugu dhacnay dhulka dastuur inoola yaalla aan samaysano waa dood maye xaalad caafimaad qabta oo hal dowlad ah oo Soomaaliyeed oo haddii ay jiraan duruufo mucayana oo dastuur la'aantii hore iyo dowladdii halka meel taallay ay dhibaato ka abuurmeen aynu taa furfurayno iyada oo aan laga tegaynin midnimadii iyo halkii dowladeed aan ahayn ma samaysanaa doodu halkaasay maraysaa dooda ugu taagan ugu adagna waa mid ah markay halkaa marayso maanta halkan waa la wada fadhiyaayo culimadiina way hadashay civil society-na way hadleen laakiin waxaan rabaa inaan sheego dooda codkooda lama maqlo doodaas markay joogto codkooda anagu ma maqlo kulli anu ma maqal meel ay ka joogaan ma aqaan waana dooda saxda ah ee dowladnimada Soomaaliyeed ay dhisan tahay waxaad moodaa inay isku dhageystaan doodaha siyaasiyiinta kale ee mararka xilalka laga yaabo inay hayaan ama heer federaal ha joogaano ama heer dowlad goboleed ha joogaan laakiin kuma laha cod ay leeyihiin sidana ama saxa ama sidana saxa eedaha marka laga reebo oo xagga dowladda u badan federaalka waliba marka waxaan jeclaan lahaa in serious laga noqdo dowlad dhiska Soomaaliya oo dadku ay guud ahaan ay doodaha ay ka dhigaan dowlado ku salaysan danta dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood oo inay yaryar yihiin baa ay dhici karto aysan weyneyn in focuska aada loo saaro laakiin waxyaabaha muhiimka ah ee dadkan ama isku hayn kara ama kala geyn kara waxaa dhici karta inaan awood badan la saarin waxaan arkaynaa hadda in waxyaabihii xataa dastuurka cayriinka ahi laakiin dee asagoon lagu dhaqmo hadda ee ku-meel gaarka inoo ah ay u kala xadaynayeen heerarka dowladda in hadda xuduudahaas oo dhan la tallaabay oo laga yaabo inaad aragto dowlad goboleed si cad u leh mas-uuliyiintii kolley qaar ka midi dee aysan intii kale ama dowladdaasi ama dowlad goboleedkaasina dee ay maadaama aysan diidin ama aysan radin aanu aragno dee inuu ku matalayo qofku inaan aragno in laga hadlaayo national ID oo dowlad goboleed yeesho central bank ay dowlad goboleed yeesho currency ama lacag gaar ah oo dowlad goboleed yeelato intaba waa aragnay waana arkaynaa shacabka marka iyo dadka Soomaaliyeed ee institutionska ah ee mas'uuliyadaha xambaarsan waxaa laga rabaa inay role iyo door ka ciyaaraan arrimaha sidaasi oo la midka ahi waa arrimo dhaawici kara isku haynta iyo midnimada dalka waxaa laga rabaa marka inay qowl yeeshaan waxaa laga rabaa inay position qaataan waxay la tahay arrimahaas inay aad iyo aad muhiim u yihiin waxaynu markaa aynu maraynaa marka la fiiriyo dastuurka meel
aan isleeyahay waa markii ay dee aynu ugu rooneen dabcan oo aynu qaybna dastuurkii baarlamaanku ay mariyeen guddiyadii ay soo dhammaystireen oo ay soo hordhigeen baarlamaanka si ay uga doodaan oo ay u mariyaan. laakiin saa sheegay doodahaasaa jira, ma loo dayn karo keliya. dabcan dadka waa lagala soo tashtay si guud, waa la soo arkay, laakiin markay halkan soo gaarto baarlamaanka keliya ma ahee dood bulsho oo cad inay furanto iyo debate oo maxaa dan la yidhaahdo qodobada qaarkood si weliba dah furan ayay u baahan tahay in looga hadlo. dalku waa inuu yeeshaa nidaam garsoor oo isku xiran, wada shaqeeya, isla markaana u dhisan si waafaqsan dastuurka. wada shaqeynta garsoorka oo ay iyo hay-adaha kale masalan oo ay ku jiraan maxkamadaha, xeer ilaalinta, booliiska, xabsiyada iyo sharciyada waa muhiim si loo helo nidaam cadaaladeed oo isku mid ah uga shaqeeya uga shaqeeya dhammaan heerarka kala duwan ee dowladda, hadday noqoto dowlad goboleed, heer dowlad goboleed iyo heerka federaal labadaba. garsoor midaysan wuxuu fursad u yahay in aan gaarno is-afgarad iyo iskaashi lagama maarmaan u ah nidaamka garsoorka dalka. marka dastuurku dhammaado oo la dhammaystiro, dowladda federaalka waxay mudnaanta siinaysaa haddii ilaahay yidhaahdo dhismaha iyo howlgelinta golaha adeega garsoorka oo baahi weyn loo qabo. waxaan insha allah dhisi doonaa maxkamadda dastuuriga ayadana oo runtii aada iyo aada loogu baahi qabo. waxaan xoojinaynaa maareynta garsoorka heerarka kala duwan ee dowladda. intuba insha allahu waxay ku xidhnaan doonaan dhammaystirka dastuurka, oo haddii aan dastuurka la dhammaystirin ay adag tahay in shaqadaa la qabto. xabsiyada iyo howlaha la xiriira dhaqangelinta maxaabiista iyo hagaajinta adeegyada xabsiyada waa kuwo u baahan casriyeyn degdega. ujeedkeennu waa inaan dhisno nidaam asluub oo casri ah, ammaan ah, ilaaliya karaamada bani aadamka, isla markaana dhiiri gelinaya dib u habeynta dhaqangelinta ama dhaqan celinta maxbuuska. waxaan ka shaqayn doonaa dhismaha kaabayaal cusub iyo tayeynta xirfadaha shaqaalaha asluubta dalka. sharciyada dalkeenna si aad ogtihiin dalka Soomaaliya sida la sheegayba waa kuwo intooda badan la sameeyey xilliyadii lixdameeyadii, waana kuwo intooda badan aan waafaqsanayn dastuurka cusub iyo baahida bulshada maanta ee Soomaaliyeed. waxaa laga maarmaan ah in dib u eegis qaran oo sharci ah oo sharciya lagu sameeyo si waafaqsan dastuurka iyo danaha bulshada maanta joogta. sharciyadaas Soomaaliyeed qabtirka cadaaladdu waa in uu gaaro dhammaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan waa inuu mudnaan gaara siiyaa haweenka, caruurta, barakacayaasha, dadka naafada ah iyo guud ahaan inta nugul. kalsoonida shacabka Soomaaliyeed waxay ku dhisan tahay garsoor madax bannaan, hufan oo isla xisaabtan leh. dowladda federaalka
waxaa ka go-an in la adkeeyo madax bannaanida garsoorka, in lagu dadaalo in magacaabista garsoorayaasha ku salaysnaato karti iyo xirfad, waana la sameeyaa hadda sida uu xeer ilaaliyuhu halkan uu ka sheegay, in la hirgeliyo nidaam anshax iyo kormeer shaqo. tani waxay kordhin doontaa kalsoonida shacabka, isla markaana waxay yarayn doontaa musuqmaasuqa iyo eexda. dalka oo u diyaar garoobaya doorashadii ugu horreysay ee qof iyo cod muddo ku dhow 50 sano siduu wasiirku sheegay, sarreynta sharciga iyo nidaam cadaaladeed oo adag wuxuu lafdhabar u yahay geedi socodka dimuqraadiyadda dalka. garsoor xoogan ayaa ilaaliya xuquuqda muwaadinka, caddeeya natiijooyinka doorashada, kuna hubiya in qof kasta codkiisa si xor ah oo nabada u dhiibtay. sidaa darteed xoojinta garsoorka waxay xoojisaa dimuqraadiyadda, dowlad wanaagga iyo kalsoonida shacabka. dadka maalka gashada dalka ee maalgashadayaasha gudaha iyo dibadda waxay ugu horeyn eegaan awoodda hay-adaha sharci iyo sharci fulinta dalka. nidaam garsoor oo la saadaalin karo oo cadaalad ah wuxuu soo jiitaa maalgashi, wuxuu abuuraa shaqo, wuxuuna kor u qaadaa kobaca dhaqaalaha. sidaa darteed xoojinta sarreynta sharciga waxay si toos ah u horseedaysaa horumar dhaqaale iyo mid bulsho. xukuumadda dan qaran waxay mudnaanta koobaad siinaysaa dhismaha nidaam cadaaladeed oo qof walba u shaqeeya. waxaan xoogga saari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo xoojinta hay-adaha iyo xeerarka dalka. waxaan haddii ilaahay yidhaahdo ka shaqayn doonaa sidii loo heli lahaa cadaalad loo dhan yahay iyo maalgelinta kaabayaasha, qalabka iyo tababarka shaqaalaha cadaaladdu u baahan yihiin. sida hore loo sheegay, istiraatiijiyadda bahda cadaaladda ee 2024-2029 oo dabcan ku mataanaysan qayb ka mid ah NTB-ga ama qorshaha isbeddelka qaranka, waa khariidada hagaysa dhammaan dib u habeynta sektarkan cadaaladda. shirkan sanadlaha ah waa madal midaynaysa dowladda federaalka ah, dowlad goboleedyada, garsoorka, bulshada rayidka, aqoon-yahanada iyo saaxiibada caalamka. waxaa laga doonayaa in la gaaro is-afgarad ku saabsan mudnaanta dib u habeynta, isku duwidda cadaaladda, laguna heshiiyo habraac cad oo lagu cabiro horumarka sanadlaha ah ee sektarka cadaaladda. waa bilow uguba oo daahfuran, isla xisaabtan iyo wadajir qaranna ku dhisan. waxaan ku boorinayaa dhammaan ka qaybgalayaasha in ay si furan uga doodaan, soo jeediyaan fikrado cusub oo ay ka go-naato fulinta natiijooyinka la ysku afgartay. Soomaaliya waxay taagan tahay xilli taariikhi ah, mustaqbalka cadaaladda dalkuna waxay ku jirtaa go-aamada aan maanta gaadhno. aniga oo aad iyo aad ugu faraxsan shirkan ay wasaaraddu soo qabanqaabisay ee muhiimka ah, waxaan si rasmi ah u furayaa saaka shirka sanadlaha ah ee bahda cadaaladda. aad iyo aad baadna u mahadsantihiin. shirkan
runtii saan sheegay waa shir aad iyo aad muhiim u ah waxaanan mar kale runtii aan idinkula dardaarmayaa waa bilow laakiin in ay ka soo baxaan talooyin iyo afkaar ay ka muuqato geesinimo iyo daacadnimo iyo in aan generalizationka iyo hadalka ama afkaarta la iska tuuro oo runtii aniga aan ku dhibsado dad fara badan in la iska daayo oo runta la sheego waxaan aaminsanahay aasaaska cadaaladdu waa run aasaaska cadaaladdu waa run waa qodob intaas waxaan rabaa inaan dadkoo dhan aan u sheego oo dadka Soomaalida dhibaatadan haysata waxa weeye mararka barkood hadalkeenu waa iska caam taa marka waxaan rajaynayaa wax caam inuusan ka soo bixin laakiin wax sax aynu ka soo baxo xaggee wax ka qaldan yihiin tilmaan saxana la siiyo la yidhaha sidaas in loo saxo waay dalka oo dhanna la eego oo aan la eegin villa Soomaaliya dadku waxay aad u eegaan villa Soomaaliya keliya waxaa kaloo muhiima inaan la eegin dowladda keliya cudurrada hanaan masalan waxaan ka hadlaynaa cadaalad waxaan u baahannahay inaynu ka hadalno cadaalad intaa ka balaaran horena waa loo sheegay cadaaladda guriga inaan ka hadalno cadaaladda iskuulka inaan ka hadalno cadaaladda masjidka inaan ka hadalno cadaaladda suuqa inaan ka hadalno waxaan u baahannahay cadaaladdu waa philosophy ka weyn qof intuu intii kaloo dhan ba cadaalad darro ku soo koray xafiis soo fadhiistay maxaad ka faa'iidaysaa xaggee ba cadaalad ka keenaya haddii uu masjidka kala soo baxay cadaalad darro oo iskuulka kala soo baxay oo suuqii kala yimid oo gurigii kala yimid xafiiska markaad keentay cadaalad darrada aad mar intaana aadan la soo hadlin ood ka soo booday xafiiska dowladda keliya markuu soo fadhiistay haddaad cadaalad ka sugto adaan cadaalad ku soconin adaa u baahan in cadaaladda dib lagu baraad u baahantay marka waxaan u baahannahay cadaaladdu filosofigeedu way ka weyn tahay intaas waa arrin bulsho oo u baahan in rootska iyo xididada si saxa loogu aaso runtayna ka dhalataa asal ahaan runta ubadka in runta lagu barbaariyo cadaaladda lagu barbaariyo ayaan u baahannahay dadkeenu cadaalad ma rumaysan yihiin waa hore ka quusteen ree hebel hadduu yahay ayaa laga bilaabaa marka waxaan u baahannahay cadaaladdu intaan ka hadlayna aan korka ka salsalaaxayna way ka weyn tahay sida ay tahay inaan uga hadalno ayaan u baahannahay oo deedna ma wada sixi karno hal maantana ma sixi karnee qorshihii lagu sixi lahaa inuu meeshan ka soo baxo oo long term ah qorshihii lagu sixi lahaa waqti dheer bay qaadanaysaa laakiin qorshihii lagu sixi lahaa waa inuu halkan ka soo baxaa waad salaamantihiin waadna mahadsantihiin shirkana guul baa u rajaynayaa aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu